celinayaa dhalinyarta naadiga akhriska iyo qoraalka ee dhambaal oo ilaa 10 su'aalood la soo gaarsiiyey si qiimo leh u soo qoray. waxaa su-aasha horeysa ay leedahay kaalin inteeda ayay ku leedahay akhriska yani diinteeda dhexdeeda, kaalin inteeda ayuu akhrisku ku leeyahay ka diinteeda dhexdeeda. su-aasha labaad aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay qur'aan bisidni cilma maadigu miyuu soo gelayaa aayaddaa uu leeyahay ilaahay qur'aan bisidni cilma miyuu soo gelayaa maadigu? guri cusub su-aasha saddexaad guri cusub markaan dhisto ma ku akhrin karaa soddonka jis ee u dhammaado? su-aasha afraad ka shaqaysiga isku beddelka lacagaha qalaad ee loo yaqaano forex haddii aan brokerka dilaal islaamic akoon ka furto iyaguna iga aqbalaan ma ku shaqaysan karaa? waxaan ahay su-aasha shanaad waxaan ahay arday daalib cilmiya waxaan doorbiday inaan casharada keligii diyaarsado heerkaan doonayay ka gaari karaa inaan casharada macallin ka maalmo keligii diyaarsado way weer tahay mise saameyn bay igu yeelan kartaa arrintaas? su-aasha lixaad basasha sakama ma ku waajibtaa? waayahay su-aasha toddobaad waxaa jirta gabdho la meheriyo iyagoo uur leh meherkoodaasi maxay diintu ka qabtaa? dilaalintu su-aasha sideedaad dilaalintu intay meheradaha tagaan ayay lacag duldhigtaan oo ayay alaabta lacag duldhigtaan aanay meheradu siinayn, sharcigu muxuu ka qabaa? waxaan joognaa meel xuduuda su-aasha sagaalaad waxaan joognaa meel xuduuda waxaana la macaamilnaa dad gaalo u badan sida aan wax uga iibino inaan diinta u gaarsiinaa maanay na saarnayn, sideese ugu fudud een hawshaa u gudan karna dadkan wax ka iibinayna gaaladan diinta gaarsiina. shirkadda laydhka saacadda markay soo qorto 20 yunit waxay kuugu dhufanayaan 20kii haddii ay soo qorto 1 yunitna 20kii ay kuugu dhufanayaan. taasna shareecada maxay ka qabtaa? barakallahu fiik. bismillah waan soo koobi doonaa diinteenu qirada miyay dhiirigelisaa? taas waa mid iska macruuf ah oo dee halka ka bilaabantay waa halkee iqra akhrigaa bay ka bilaabay xiisadii ama casharkii ugu horreeyay nebi maxamed qaatayba akhribe markuu ku celceliyo ma ana biqaari waxaan akhri karaana ma jirana ilaahay baa baray. marka qirada iyo qoraalku waa waxay nagu soo gaadhayba diinta ila nebigii maynaan arag, asxaabtiina maynaan arag, taabiciintii maynaan arag, qira iyo qoraal buu nagu soo gaadhay. marka cidda keliya qoraalka iyo akhrintu qoraal la-aantii akhrin la-aantu ammaanayo ahayd waa nebigunbu ahaa annabiyu lumiy, laakiin dadka kale dhaliil bay ku tahay. saa daraaddeed qof waliba inuu wax akhriyo oo wax qoro aad bay muhiim u tahay, weliba cilmiga samaawiga iyo diinta iyo carabiga. cilmiga maadiga iyo barashadiisa ama miyuu soo gelaya waqul rabbi zidni cilman? waqul rabbi zidni cilman cilmiga la yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay bari inuu kuu kordhiyo si toosa waxa u soo gelaya alcilmu samaawi, cilmiga waxyiga ah waa kaa weeye waa cilmun mamduuxun bikulli xaal, cilmi xaalad walba ammaan la weeye. cilmiga samaawiga kaa weeye ka la yidhi ku ducayso. cilmiga maadigana marka dalka iyo dadka iyo diinta loogu adeegayo isaguna cilmi mamduux ah oo wanaagsan buu noqdaa oo markaa isaguna ay culimada muslimiintu ku dadaali jireen. qur-aanka kariimka ah ma ku akhriyaa gurigu markuu cusub yahay? suurat lbaqara ayuu nebigu inoo jideeyay in lagu akhriyo oo shaydaanku ka cararo. guriga suurat lbaqara lagu akhriyo shaydaanku uu ka cararaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo aayad kursi dhaba. saa daraaddeed guriga cusub iyo ka lagu jiro habeen iyo maalinba
marnaba inaanu qur-aanka ka qabin weeye suuraddaana sidaasuu nebigu ku taliyay in lagu akhriyay calayhi salaatu wasalaam waana sunne waxaan foregoska la yidhaahdaa sax maaha sarifka noocaasa foregosku waa xaaraan ribaa ku jirta labadeedii noocba riba alfadli wa riba alnasii'a ribadii amaahda iyo tii gacanta labaduba ay ku jiraan qofkii doonayaana daraasad buu ku samayn karaa marka la eego noocyadiisa kala duwan sarifka noocaasa waa ribada labadeedii noocba way ku jiraan waydin iska day su-aasha kale waxay haddaan keligay wax akhristo ma dhib baa ku jira haa dhib baa ku jira waad iska akhrisan kartaa waxna waad baran kartaa laakiin qofka bani aadamka ahay waxa uu baahan yahay wax saxa almu'minu mir'aatu akhiihi buu nebigu qofka mu'minka ahay walaalkiisa kale ayuu muraayad u yahay qaladaad had iyo jeer kama baxsado qofka keligii wax barta cilmigu wuxuu u baahan yahay maadi iyo diiniba inaad u yeelato mucallim waayo nebi maxamed waxaa mucallim u ahaa malaga rasuulkuna asxaabtu mucallim u ahaa culumta inteeda badanina waxay u baahan tahay inaad mucallim iyo sheekh ku yeelato sidaa daraaddeed baa muxadisiintu waxay odhan jireen laa ta'khudu alxadiida min saxafiyin wala alqur'aana min misxafiy xadiidka ha ka qaadanina qofka keligii kutubta akhrista iyo qofka qur-aanka keligii yidhaahdo waan iska bartay iyadoona mucallim ka baran ha ka qaadanina laxni ayaa uu aana u yahay qofkaasi man dakhala fi lcilmi waxdahu kharaja minhu waxdah waxaa kale odhan jireen culimmadu qofka cilmiga keligii dhex galaa keligiibuu ka dhex baxaa wax badan kalama tago marka waa lagama maarmaan dadka inaad wax la barato wax la raajacdo lagaa dhagaysto lagu saxo si aad isu aragto xaaladaada sakada iyo basashu sadaqa mooyaane basasha iyo khudradda kale saka ma laha saka ku waajibtay ma jirto laakiin sadaqa unbaad ka bixin doontaa siduu ilaahayba yidhi wa aatuu xaqahu yowma xasaadi ruuxa dumarka ah ee uursina asida ma mehersamayso madhabtaasaynu xoojinaynaa dhallinyaradana waxyaabaha la gooya waxaa ka mid ah inay is yidhaahdaan marka aada uuraysataba waan ku meherin oo waa la isku keen asturi aan iska walaaqano qulunka riwaayadaasaa meesha ku badan marka waa inay ogaadaan inaan allaba asturin kol haddii ay uur buurani soo baxdee oon meeshii asturaadi jirin ay inkaara dhacayaan ma mehersamaysa ilaa ay dhasho cidday ku jirtaayo ilaahayna wuxu uhi wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna khilaafuu jira ee qowlkaasaynu xoojinaynaa naag uur lihi lama meherin karoo weli may cadad bixin su-aasha kale waxay dilaalku hadduu wax qariyo ma saxbaa dee wax la qariyo qulun baa ku jira baaba la yidhi xalaalna iftin baa la qashaabaa la yidhi mahmaahii soomaalida usoo noqon marka shayga haddaad qarinayso hadduu xalaalayo maxaad u qarinaysa dilaalku wuxuu qaadan karaa wax cad oo labada dhanba ogyihiin waayo shaquu qabtay shaqadiisa wuxuu ku qaadanayo labada dhan midna yuu ka qarin waa inuu idhaahdaa intaasaan adiga kugu leeya ama adigana inta shayga intaasaa la siinaya dilaalkuna hebel buu la socdaa waana nambarkaasoo lacagtiisu waa intaa marka iska ilaaliya wixii wax idinku soo dhuumanayaan annagoo ganacsato ah oo gaalada wax ka iibinayna dacwad miyaanu u fidin karnaa maahae waajib bay kugu tahay waxaad u xil saarantae ugu horeeyaa waa diinta inaad dadka gaadhsiiso adduunya innaga yayna soo gaadhsiiya soomaaliyama wuxuu ku soo gaadhay qaybaheeda kala duwan oo dhan soomaalida dee dagaal iyo jihaad kuma soo gaadhin dacwad iyo islaamka wuxuu ku soo gaadhay can dariiqi tujaar ganacsatadii ayayna soo gaadhsiiyeen iyo culimo soo tallaabay khayr allah siiyo markaa ku xisaabtamay in ammaanada gudataan oo anigii markii hore kuu soo sheegay ku yidhi qofka ganacsadahay siduu masaajidka dhexdiisa ku yahay ayuu bakhaarka iyo suuqana ku yahay oo diintii uu ku hayay masaajidku dabaddana la tegayaa su-aasha kale ah sharkadii baa waxaan ku iibinaysaa marna kan dee xor baa tahaye haddii ay ku yidhaahdeen annagu waxa iyagu sidaasuu mukhaarij ku yahay ama kaga iibsa ama mashiin gaarah iyo soo larshido wallahu aclam su-aasha udambeysa waa heshiiska ay kula galeen marka hore ay ku sheegeen ama ku gala ama ha ku geli waa arig jirtaa oo soo noqotaa su-aashaas sheekh allaha ka abaaliyo nin allaha inoo faro bangiyadu waxay yidhaahdaan markay qofka wax amaahinayaan ama ay wixii la odhan jiray muraabaxada boqolkiiba 30 soo qata
boqolkiiba 30 soo qati marka arrintaasi siday tahay taasi waa su-aasha kale xabaalaha ma la mulki karaa waxaa jira xabaalo wajaale oo meeshoodii laga qaaday ma la mulki karaa markaa dhulka xabaalaha taasi su-aasha saasay kusoo wabsantaan filayaa haddii lasoo koobo su-aasha labaad marka saddexaad baan idhaahe dawada dumarku ismariyaan ma laga ganacsan karaa dawadaasi ma laga ganacsan karaa su-aasha kale salaada subax ee wuxuu yahaa qunuudda salaada subax waajibka sahwi baa lagu kabaya maxay tahay su-aasha kale waxa weeyaan in baa iska dilaa lahaa meherada ayuu u soo qaadaa alaabaha waanu dhintay alaabta maciddii uu soo qaaday baa lagu leeyahay se isaga ayaa lagu leeyahay waa alaabkeena uu ahaa oo qaarku alaab kala qaadayay marka alaabtaasi markuu dhintay ma isagaa lagu leeyahay mise meheradii ayaga taasna waa taa su-aashana waxay tahay lacag baa laygu lahaa lacagtuna lacagtii hore Soomaaliya ayay ahayd ma garanayo qiimaha ay lacagtaasi maanta taagan tahay qofkiina ma garanayo sidee u dayl baxaa su-aasha kale waxa weeyaan qur-aanka haddii mar la dhammayn waayo ma hijiradii laga hijirooday buu noqonayaa qur-aanka haddii la khatimi waayo miyuu noqonayaa mahjuurkii lagu sheegay qur-aanka su-aashana waxay tahay marka qofku dhinto mayaan idhaaha marka qofka dhalinyarta ay guursado shaqada ayaa laga eriyaa arrinkaasi maxay diintu ka qabtaan alaa culayska soo kordhiyay jira meeqdo allaa sahal waaba la caawin lahaa kaasoo kale waayo su-aashan waxay leedahay markii aan yaraa daadaydu ahayd 13 ilaa 14 ayaa u xali jiray dadka qaarkood waan garanayaa wax ka qaaday qaarna ma garanayo شرحات الوطن وصدري توجد في الوجود ما شاء الله ونقل في عن ذلك أولا شيء على المرة إن شاء الله وحن أهل ولد ليرى وحن لقى قف أدو قرابة وقبل أهو أدوانا هيستا وحبا الله يتم حيث أبطالونا وقبل شيخ وحن nin baa dhuli siiyey walaalkaya wuu igaga noqday noqoshadaasi maxay diintu ka qabta waayahay su-aasha kale waxay tahay aabbahay ayaa hanti badan lahaan jiray oo hantiilaa ah carruurtii walaalkii dhalay ayuu hantidii ku soo koriyey aabbahay wuu dhintay xoolihii ayay igu qabsadeen carruurtii aan dhulmaadeedka ahay dagaal bay naga gaadhay gacansaar bay naga gaadhay tolkina waxba way ka qaban kari waaye arrintaasi aabbahay dambi ma ku leeyahay dhibaatada halkaa ka dhacda كان الحمد لله وسوكو كوبينا مرابحة وقفكيو ألعاب كوسو بانكيو ألعاب كوسو يبينيا كل هذه الشيء كيلو شرعي وافق صيد بيع له ولا قول أنت أنا سوق قديم أنت أنا ولا قوام هنا وحدي وكتير ما تشوف وهي شيء أكل يبسنا يسان لعكتي سواد ولا بحين كرتا بدنا واد بحين كرتا ولد ولا أمهان كرتا لكن وين إيبكو دعاون مركو بانكو ألعابتك كينا كدي وأنا كهريني سيدا في عنينا وحوية أنت ألعابتا العكتا سوق الدنتين معاش ومصارين إلا يروى سوق الدنتين حوالا من الملكي كرا هاي قف كان أنت لغو آسيبو ملكية وحلوغا ساري كراون مصلحة عامة درادين مصلحة عامة مسلم كوبا هي درادين ayaa looga saari karaa taana halkeedaad ka raajici wadada imika marka dee laga saaray meel lagu
hagaagsan lagu aasay sidaasaa u fiican intii la dul mari lahaa laakiin qofka guri ka dul dhisanaya ama damaaciyaya sax maaha ee qofkan baa milkiyey intaa lagu aasay intaasuu yeeshay dawada dumarku isku caddeeyaan ama mid kasta oo jidhka wax ka bedelaysa in la isticmaalo qofku ismariyaana waa xaaraan in laga baacmushtareeyaana waa xaaraan laa darara walaa diraara addararu yuzaal xadiidkii iyo qawaaciddiiba saasay ahaayeen wixii dhibihi ummadda ka hadhan diintuna waxay u timidba dadka in dhibka laga ilaaliyo shaydaankuna waxyaabuhu ummadda u xayeysiiye waxaa ka mid ah inuu dadka jidhkooda wax ka bedelo oo uu taa jeclaysiiyo ninku gabadh isu egaysiiyo gabadhuna nin isu egaysiiso hadda caalamka inagu weli waxaynu maraynaa weji la caddeeye iyo waxyaabahaasaynu maraynaa marka waxaan sii socdaan meel xun bay gaadhaan qalliinaa la sameeyaa qalliinkaa nin baa lagu samaynaya gabadh baa laga dhigaya gabadhiina nin baa laga dhigaya oo codkii baa loo weyneynayaa naasiina waa laga yaraynayaa xubinkii tarankana qalliin baa lagu samaynayaa waxaa laga yaabaa 6 biloodna inuu nin noqdo 6 biloodna naa noqdo oo markaa la yidhaahdo magaciisa maxaa la odhan karaa waryaanaaya ila waryaana mahanayaana maaha waryaanaaya marka haddee waxaani joogsan waayaan halkaasay gaadhi karaan quruudka madhabu shaaficiya way sheegaan allahuma hdinii fii man haday jumhuuru lculamaana waxay leeyihiin quruudku waxa uu ku gaar yahay markay balaayooyin dhacaan ama muslimka dhibaato iyo dagaalla ku dhacaan laakiin madhabu shaaficiya ayaa qaba daliiladoodana halkoodaad ka eegi doontaa hadduu qofku iska daayana salaadiisi waxba noqon mayso iyaguba waa sunna bay qabaan dilaalkii alaab soo iibinaya dhintay dee laba qof buu kala qaadaya alaabta haddii kii alaabta lagu waday uu gaadhsiiyo dee wuu xil baxay haddii qofkii alaabta uu ku waday aanu gaadhsiininna dee isagaa lagu leeyahoo waxaa laga bixin doonaa tarikadiisa iyo xoolaha uu ka tegay ilaa ammaanuu siday ammaanadiina muu gaadhsiinin ciddii lahayd marka haddii taa la caddeeyo isagaa lagu leeyahay ciddii lahayd baa looga jari doonaa xoolihiisa cala alyadi maa akhadat xataa tu'addiya gacan walba waxaa lagu leeyahay wixii ay qaadda ilaa ay bixiso daynta qadiimka ah sidee loo bixinayaa gashigii 20 sano 30 sano 40 sano ka hor ahaa waxaa lagu bixinayaa qiimuhu maalintaa lahaa daliilkuna waxa weeye aayadda suurat lbaqara ku jirta fii aayaati riba wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun aayaddu dayntay ka warramaysa qofka dayni ka maqan tahay wixiisa waa inaan la khasaarinin oo la baabiinin isaguna dadka waa inaanu ribo dul saarin waxaa laga yaabaa 100,000 70kii markaynu eegno dee inay 3 maqsin kuu dhisayeen 100,000 oo shilin soomaaliya maantana waxay yihiin waa la garanayaa waxalla waxay ma jiro marka qofkii wixiisi la baabiin maayo isaguna ribo inuu saaro maaha maalintii la kala qaatay baa la odhanayaa 100,000 maxay xoolo nool ka goynayeen maxay raashin ka goynayeen qiimihii maalintaasaa lagu xisaabtamaya si loo xil bixi karo oo qofkana wixiisi aan loo baabiinin qur-aanka kariimka qofka khatimi waaya miyuu noqonayaa qofkii qur-aanka ka haajiray haabay leeyihin culimada qaarkood ibnu qayim raximah llahu markuu fasirayo aayadda waqaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura qofku sida uu kaga fakan karo hujraanka ah ama marka la odhan karo qur-aankii kamuu tegina wuu hayaa waa 5 siyood markuu samaynaya buu leeyahy markuu qofku rumeeyo qur-aanka uu barto uu ku camal falo uu ku cibaadaysto uu isku daweeyo 5 siyood ayaa hijraanka ka saari kara marka qur-aankii ilaahay ku baray haddii aad khatimiba weyda dhammaynba weyda akhriba weydo waad ka tagtay weeye macnaheedu waa xidhiidhka ugu cajiibsan adii ilaahay idin xidhiidhinaya waa kalaamka rabbi arrintan kale ninka dhallinyarada ahay markuu guursado shaqadaa laga caydhiyaa talo makaarta reer wajaalaadee meel walba kama jirtee dee talo ma ganacsatadii baa waxay leeyihiin culays buu soo kordhiyey wakhtigii buu goostay islaantiisii buu ku baashaalay ma sidaasaa macnuhu waxaa muhiimahu qofku horta dee markuu guursado uu asturmaye innagii buu inaga asturmay oo dee isagiiba asturmaye in la garab qabto oo maaragtay wixii berigii hore la odhan jiray kaalaa la odhan jiray
qofka dhalinyarada guursada waa la kaalin jiray waa la saacidi jiray taa xaq buu noogu leeyahay waana xidhiir qiimo badan oo fiican guurkana way dhib yaraynaysaa sinadana way hor joogsanaysaa laakiin marka beesha yaalla waxa weeye si uu qofkana u shaqaysto u macaash qofkii ganacsadahana aan loo khasaarinin dadka heshiis baa kala haga waqtigu kuu shaqaynaya iyo shaqadu kuu qabanaya lacagtuu qaadanaya intaa haddaa ka heshiisaan ama solana ha ahaado ama afar ha qabee maxaa kaa galay adiga midkuu doonaya ahaadee wuxuuna kala qoranaysaa wax cad waxaa cad hadduu ka soo bixi waayo shaqada isagay u taallaa marka heshiiskaa lagu kala hagmayaaye kanaa xaas lah iyo kanaa dhalinyaraa maaha tuug baan ahaa markii aan da-da yaraa dadkii aan wax ka xadayna waan garanayaa maxaan yeelaa horta qofku markuu ilmo yar yahay oon qaan gaadhin dembi ma fuulo rufica can ummati alkhata wanisyaanu wamastukriu caleyh waa acdaarti qofka waxba lagama qoro bay ahayd inta aanu qaan gaadhin maaragtay haddii aanu xulmi gaadhin waxba lagama qorayo gashigase waa ku sugmayaa oo ilmaha yar iyo qofka waalan iyo wixii ay geystaan dee waa wax lagu leeyahay saa daraaddeed dadkii aada wax ka qaaday waxoodii waad ku celinaysaa kii aada wax u weydanaysaa ama xabaad odhanaysaa waad xil baxaysaa wixii wuu ku saaran yahay laakiin yaraantii dee qofku dembi ma raacayo mar walbana waxaa fiican tarbiyadda ubadka in loogu dadaalo loo sheego waxa la yidhaahdo xaaraanta iyo tuugada in ilmuhu intuu yar yahay la baro lagu barbaariyo si aanu wax caadiya ugu qaadan su-aasha kale agoonta xoolahooda wax ma ka cuni karaa haddii aan guriga la joogo waa haddaad wax u qabanayso haddaad wax barayso caruurta maalan dhallinyaraadka qur-aanka u dhig casharada iskuulka usoo raajac xisaabaadkiiyo bar aqoon u kordhiyo saacid tuugga ha kaa weheshadaan u soo adeegoo biyaha usoo dhaami dee qaaciduu ilaahay sheego wuxuu uhi wain tukhaaliduuhum fa ikhwaanukum agoonta haddaa wax isku darsataan wax waa la cuni kartaan haddaanad waxba ku darsanin ood iska soo caraabayso wuxoodu waa kaa xaaraan marka rag iyo dumar cidda agoonta la joogta qof waliba waa inuu ama maal ku darsadaa ama cilmi ku darsadaa ama cudud iyo xoog ku darsadaa waa la fahmay soo maaha walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan sidaasaa lagula soconaya qof baa hibaysiiye ama walaalkaybaa waxisiiyo ku noqday ma ansaxaysa mee ma ansaxayso qofku hadduu shay ku siiyaad kala wareegto kuma noqon karo ceeb iyo calaf la-aan baa isu raacay wuu ku ceeboobay calaf la heli maayo waalcaa'idu fii hibatihi kalkalbi alcaa'idi fii qayih rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiidka saxiixa wuxuu ku leeyahay qofka intuu wax bixiyo doono inuu ku noqdo wuxuu la mid yahay ay hunqaaco hunqaacadii dib u cunaya wax ka foolxun miyaad garanaysa markaa dadka qaarkood baa markay xaaska isdiidaan ayaa wuxuu leeyahay miyay diiday dee xilo la-aan iyo xoolo la-aan isu kay raaci maayo igu shub wixii iga baxay yarad baa iga baxay oo beher baa iga baxay oo gabaatay baa iga baxay oo xaal sodoheed baa iga baxay oo fujaannaa iga baxay deyna xisaabiya waa ruuxaa waxba kaaga soo beherkiiyo qura kaaga soo noqonaya ruuxaa dumarhee xaaska ahayd wixii ku baxay mooyaane wixii sodohdu qaadatay iyo wixii tolku qaatay iyo wixii ikraam iyo ahaa maamuus iyo hibo waxba ka soo noqon maaya marka hibada laguma noqdo in lagu noqdaana ma ansaxayso su-aashan kale iyadu kolley tafaasiil bay u baahan tahay aabbaa dad wax siin jiray oo wixii bay nagu qabsadeen dee maxkamaduungee hadday ka hari waayaan ilaa iminka kaa reebi kari mayne maxkamaduungee iyo ciddii kaa qaban lahayd halkaasaa lagaaga furfur insha allah wixii aada siin kartana sii odayguna dee hadduu ixsaan samaynayay ilaahay wuxu uhi maa cala almuxsiniina min sabiil dadkii samafalayaasha ahaa dembi laguma laha buu ilahay aabbaha wuu u samafalaye dee ubadkayga markaa dhinta qabsada muu odhanin marka isaga wax dembiya kuma leh soo wari doonaa saailkan wuxuu leeyahay bisin la-aan ma lagu tukan karaa marka axkaamta bisinka hoos baa loo dhigayaa bismiyaa laga tegayaa waa axkaamta bisinka weeye su-aal kale ninkan waxau leeyahay waxaan alaadaantaasi xagga etoobiya waxaan jeclahay meel dad jirkooda ka ganacsadaa wax loo sheegi karaana ma jiro arrintaa maxaa ay dembiga ku yeelan karaa waa meel kolisilan weeye waaya su-aasha kale waxay tahay ilaal ma siin karaa ninka ii keena macmiil waxay iibsataa ilaal ma siin karaa qofku wuxuu ii keena in waxay iibsataa
gurigaan ku jiraa qofkii lahaa heshiisku ila qortay muddaysan intaanay muddadii dhammaanin kirada miyuu igu kordhin karaa kiradaas oo kale miyuu igu kordhin karaa anigoo raali ka ahay ku celi guri nin baan guri iga kireeyey heshiis baanu kala qorannay muddaysan intaanay muddadii dhammaanin kiradii miyuu igu kordhin karaa anigoo arrinta aan raali ka ahay guri baan ku jiraa muddana ii kiraysnaa iyadoo dhammaan ayuu yidhi waan kala jarayaayoo gurigii baan qaybinayaa xaqna ugu leeyahay inta ay muddadii inaan ku jiro oo aan gurigaa kala jarjarin qofkaasi xorriyadeeda ku samayn guriga guriga aan ku jiro wixii dayactira oo aan anigu ka qabto wuxuu yidhi guri aan ku jiro ayaa markan ka baxaya wax dayactir baa ayaa lagu samaynayaa waxaanan u geysanin baa markaasi la odhanayaa dayactir ku samey dhib anigu aanan u geysan shareecadu maxay ka qabtaa gurigaasi aan ku jiray laakiin wax dayactira wax dhib aanan u geysan laleeyahay dayactir ku samey waayahay khashinka magaalada iyo halka dadka lagu aasaabo isku meel arrintaan ma lagu dambaabaya khashinka magaalada halka lagu shubo iyo meesha dadka lagu aasaabo waa isku meel keliya ilmo laqiiqa oo bimacnaa la soo tuuray oo ayaa cisbitaalka ka qaaday waan koriyaa naaskaan siiyey dadkii waxay igu ilaaheen ha korina iska tuur arrintaana dembi baa iigu jira qofkaasi yacni waa ilmaha yar ee maaragtay saa ku dhashay ardayga wuxuu leeyahay nin ardayga baan ahay markaa isagu ducuu dalbanayaa ducada waa dambaysiinana wuxuu leeyahay shaqaan ka shaqaynayay shaqadii waxaan runtii waqtigayga oo dhan bay war qaadatay waan ka tegay markaa adigu ducuu dalbanayaa insha allah su-aashaas waxayd bisinka horta lagama tegi karo faatixada siiba marka faatixada la akhriyo bisinka waa in la akhriyo laakiin korna waa loo qaadi karaa hoosna waa loo dhigi karaa laba daliil baa kusoo arooro midi sheegayo in hoos loo dhigayo midina wuxuu sheegaya in kor loo qaadayo madhabta shaaficiyadu waxay sheegaysaa soomaalidu inta badan ku dhaqmaan in kor loo qaaday sheegaysa labada xadiid waxaa saxeexsan ka sheegaya in hoos loo dhigo qofka kor u qaadana in lala dagaalamo maaha ka hoos u dhigana in lala dagaalamo maaha labaduba way jiraan sidaa daraaddeed labada qofna way isku xidhanayaan laakiin laga tegi maayo waxaan la jaarahay dad jidhkooda iibsada ama aan wanaagsanayn maxaa jira waxaa fiican inaad xumaanta iyadaa wax ka bedasho haddaanad ka bedeli karaynin aada iskaga durugto hadday kuu suuroobayso waayo waxaa macaasida la yidhaahdo oo aad ka ag dhowdahay musiiba yeelan kartaa ku soo gaadha iyo dhimbiilaha ka duulduulaya in wax kaa soo gaadhaan nin baa 100 qof dilay nin caalimu u tegay markuu la talinayo wuxuu yidhi halkan dad xun iyo dad xun baa jooga dalkane iska aag bedelo meeshaa wanaagsan tag sidii baa ilaahay ugu naxariistay ninkii dalkii xumaa iyo dadkii xumaa ee uu ka tegay xadiidkii saxiixa dheeraa badiil buu sameeyay wuxuu warniyo meeshan waa laga qaniinay oo dal xun iyo dad xun baa jooga ka aag bedelay xigmad carbeedna waxay leedahay aljaara qabla daar jaarka iska hubso intaanad guriga gelin ama dhisanin dilaalka in la siiyo la yidhaahdo dilaal baan ku siinayaa ee kastamar badan keen waxaa muhiimahuun inaanay waxaas ahayn wax qarsoodiya oo aynu uga jeedno qofkii wuxuu leeyahay maalan haddaad doonayso kastamar badan ama macmiil badan inaan kuu keeno ama iibsadayaal badan dee aniga waxiisaa sooma badno taas aniga wax igu nab buu leeyahay igu nab hay-ad buu wuxuu iibinayaa dowlad buu wuxuu iibinayaa shaksi buu wuxuu iibinayaa
shaygan 100,000 baa la siiyaa dee 110 igu qor juwanka 10ka anigu aan qaato adiguna 100kaagii qaado dariiqadaasi waa xaaraan qofkii wax loo iibinaya culays fuulay ama hay-adii wax loo iibinayay loomana sheegin waa khiyaamo dilaalkaagu waa inuu cad yahay oo labada dhanbe ay og yihiin markaasuu xalaal noqonaya waxaad u qarinaysaa buu qabaa haddaad mushaharka ciddii aad ka qaadanaysay haddana dulsaar saarto miyaanay laba dheefidahayn waad laba dheefaysa taasi aada u badan iminka dad badan oo dilaalinaya qaar badan oo ganacsatada iyo dowladaha iyo hay-adaha iyo waxa loo iibiyo mushkiladaasi waa mushkilad aada iyo aada u khatar badan intuu qofku isleeyahay macmiil badan samayso ayuu xaaraantaa ku dhacaya alaabtan imisaad siinaysaa 100 baan siinayaa dee adeer maadii saari 120 oo juwanka beentaa maad ku qori waan ku qori maayo hadduu idhahdana kuguba soo noqon mayna buu leeyahay markuu kan idhaahdo kugu soo noqon maayo kan kalena kugu soo noqon maayo ayuu odhanayaa meeshiiba wax soo noqonaya male bal waayo ugu qor waa kaa dhiirigiiba ku geliyeyba marka taasun waa inaanay noqonin labada qofa guriga kala kiraysanaya heshiiskooda waa inuu cadi 2 sanaad gurigaa ku jiraysaa kiradana lagugu kordhin maayo waa intaa heshiiskaas ayaa saaraya oo soconaya 2 sano lagama saari karo lagumana kordhin karo laakiin haddii la yidhi 2 sano baa lagaa kireeyay kiraduna waa intaa oo aan la raacinin laguguma kordhin karo dee qofkii xaq wuxuu leeyahay inuu ku kordhiyo ilaa waxa laga wada hadlay muddadun baa ahayd ee kirada ma ahayn kirada markaan la kordhinayn waa markii lagu heshiiyey inaan la kordhinin laakiin haddaan laba soo hadal qaadin kordhiniyo la-aanteed qofkii wuu kordhin karaa qof kastoo wax kiraysanayana waxa waajiba inuu muddo loo yeelo taa iska hubsada waynu fudaysanaya shareecadeenna iska daayo qaanuunka ayaa arrintaasi ay shardit qof kastoo meel kiraysanaya ama ijaar iyo kiro gelaya waa in muddadu cayimanta haddii aanay muddo jirin caqadkaasi ma ansaxayaday leeyihin culimada qayb badan oo ka mid waayo arkaantii iyo nidaamkii kirada ayaa meesha ka baxay qofkana muddadaa loo qoray lagama saari karo haddaanu xadgudub iyo gaboodfal la imanin guriga wax ma ka bedeli karaa haddii lagu heshiiyey inaad waxaa iyo waxaa ka bedesho ama qofkii lahaa aada soo ogeysiisay markaad wax ka bedelayso laakiin haddii aanad labadaa midna jirin waxba kama bedeli kartid guriga waxaa la igu qasbayaa wax aanan yeelin dee waa la qiimeynaya garsoor kuu yaallaa taasi iyo cidda aqoon u leh guriga marka aad ku jirto ama shaygii aad kiraysatay waxna xaq baa lagugu leeyay inaad ka hagaajiso waxna xaq laguguma leh waxa xaq lagugu leeyay wixii adigu aad gaadhsiisay istambarkiisa laydhka biyaha bulaacadaha fitinada waxaasoo dhan aad gaadhsiisay laakiin aafooyinkii dabeylihii iyo wixii dhacayay iyo duufaanadii iyo dildilaacyadii dhulka dee adiga laguma leh saasaa loo kala qaadaya xabaalaha iyo kudaafadu way isku dhow yihiin sax maaha rasuulku waxa uu leeyahay laa tajlisuu cala alqubuuri walaa tusalluu ilayha xabaalaha hana u tukanina xaggooda hana ku fadhiisanina in wax laga dul dhisana nebigu uu diiday calayhi salaatu wasalaam ixtiraam buu mudan yahay qofka mu'minka ahay xayan wa mayitan markuu dhintay iyo markuu nool yahayba sidaa daraaddeed in dayr lagu xidho wixii qurunka iyo kudaafadana laga fogeeyo wey wuxuu xataa diiday nebigu xadiidkaasi waa sugan yahay in kabaha lala dhex maro xabaalaha kabaha in lala dhex maro waa diido ninkii sibtiyataynka gashanaa kabaha ka bixi buu lahaa kasru cadmi lmayt ka kasrihi xayan nebigu wuxuu leeyahay qof dhintay oo laftiisa aada jabiso waxay la mid tahay isagoo nool oo lafihiisa aada jajabiso kale xabaalaha gaalada iyo kuwa muslimku way kala duwan yihin marka qofka muslimkii markuu aasan yahayna ixtiraamkaasuu leeyahay marka shacabka iyo dowladduba waa inay ka ilaaliyaan kudaafadda xabaalaha in laga ilaaliyo wey su-aasha u dambaysaa waxay ahayd ilmo yaroo aan korinayaabaa wax laga sheegay waxba lagama sheegi karo ilmaha yar haddii la tuuro ninkiiyo naagta tuuray waa dembiilayaan dilna way geysteen maalinta qiyaamahana ilaahay iyagu u haystaa laakiin shacabka meesha jooga iyo dowladda waxa waajib ku ah ilmaha yar in la qaado la koriyo oo wax la baro oo loo dadaalo oo dadka wanaagsan ee bulshada ka mid a laga mid dhigo
haddii qofkaas sidaa loo sameeyo wax la baro oo la koriyo hadha waxaa laga yaabaa inuu noqdo maalqabeenka waddanka ama madaxda waddanka dabeedna wuxuu odhanayaa ummaddii kuu samafashay adiguna u abaalgud kolkaasaa laga yaabaa inuu hogaamin fiican iyo samafal fiican keeno haddii laakiin la dayaco la duudsiyo la dulmiyo isaguna dubbihiisuu la soo baxaya hadhowto oo hadhowto wuxuu odhanayaa garac bay kugu sheegeen iyo fataal iyo balaaye adiguna kuwan waxba ha u reebin cadowgu kuu soo raacaya markaa waajibaadka ummad meelaha ay waajibka tahay maha sunne meelaha ay waajibka tahay in wax lagu bixiyo waa caruurtaa yaryara la tuuray ama cid aan lahayn korintooda ayaa ka mid ah وإن شاء الله وصور بالآخر ومرغم إن شاء الله تعالى سؤال شهوة korintan bay soo geli سؤال شهوة وليه هاي waxaa jirta dad diinta caaya oo aan wax badan laga qaban dee maamulka aanay ka qabanin dadka qaarna ay ku odhanayaan diintaa ducaayay ama adigu diintiisa cay oo sidaas oo kale hadal noocaasa waxaa loogu nasteexaynayaa dadkaasi kuwa dee maamul iyo dadka caaya intaba su-aasha kale waxay leedahay mataane 8 biloodaba iga dhintay ma shafeeco qaadayaan 8 bilood ku shafeeco qaadayaan cafiro su-aashana waxay leedahay markaan salaada tukanayo haddii ilmo yar oo kaadidii istijaayadii isku taago manisaato intaas noqonaysaa markaa meesha dee ku tukanayay ilmaha yare kaadida haddii istijaayadii isku taago istijaayada ku tukanayo sheekh hadbad baan ururiyaa hadbadaasi xukunkeeda wuxuu noqonayaa dee markaasi su-aashan kollay qofkaa soo qoray waana runtii haddii ilmaha yar naaska jaqaya weelka uu biyaha ku cabo haddii uu aabihii ka daba cabo gabadhu may ka furmaysaa arrintan kollay la sheegay ma garanayno laakiin waa qofku in kollay soo maray la sheega waa muhiim waa wax kollay dadka camala 3 caruura ayaa iga soo يعني إذا قلتي 5 بلاد ضيعين مية وانقل إليه أقولنا إن شاء الله تعالى لما سؤال لو سكون وحي شيئا نكيي أيام مدة 5 إلى 10 سنة ضاع سلا سكون التي وحبيلا أو يسي كلنا مجتو نيا أسيط هذه ما دامو إنها سوحبيلا عن يسينا وليس كاسيان ودلقاتي مددادheer marka sidaas biilka iyo asidii isku xiray bulshada qofka diinta caaya uu ku gaaloobaya muslimka hareerihiisana maamulaya shacabka waxa waajib ku ah in la soo qabto la ilaa toobadkeen hadduu toobadkeenu halkaa ku daayo ilaahay waa aqbalaa toobadda qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica hadduu diidana dil buu mutaystay in la difaacana waa xaaraan oo qofka caasiga qofka difaacaya waxa weeyaan isagu la mowqif yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam aada wuxuu uga xanaaqay usaana ergaduu ka ergeeyay gabadh sinaysatay laa tashfacu fii xaddin min xuduud illaah waar maxeer ciqaabeed maxkamadda horteeda ka caddaaday baad difaacaysaa aada buu canaantay marka qofka muslimkaa waa inuu difaacaa diintiisa dadka xunna la hanuuniya hadday hagaagi waayana xeer ciqaabeedkooda la mariyaa ilmaha yara dhintay shafaaco miyuu leeyahay walqal miyuu leeyahay salaad miyuu leeyahay inta midna ma leh musiibaa ku dhacday waalidkan ilaahay wuu ka abaal marinaya walqalna ma laha salaadna laguma tukanayo haddaanu nolol ku soo dhalan hadduu nolol ku soo dhashayna intaa horeba wuu leeyahay noloshiisana waxaa muujinaya inuu qayliyo ama neefneefsado istihlaalka waxa la yidhaahdo oo la garto xayaata inay ku jirto markaasibuu axkaamtaa yeelanaya waxbuu dhexli karaa waa la magac bixinayaa waa la walqalayaa walad baa loo tixgelinayaa walad qofka walad u dhinto buu nebigu leeyahay man maata lahu 3 markaa dee haddii aanu qofkii nololba kusoo dhalanin baabkaa heli maayo ilmaha yar
kaadidiisu dabcan haddii ay qofkii ku daadato waalidka ahaa markuu tukanayo way nijaasaynaysa marka waa inuu iska maydhaa meeshuu ku tukanayo iyo marada intaba waa inuu iska basriyo nijaasaadkii bay ka mid tahay shayga loo yaqaano kaadidu hagbadda culimmada qaarkood way diidaan oo waxay leeyihiin waa amaah dheefi ku jirto ee amaahi aan ku amaahiye kullu qardin jara nafcan fa huwa riban amaah kastoo dheefi la socoto dheefsiin sax maaha bay leeyihin qayb ka midina way banneeyaan marka hadduu iska qaato qofku qowlkaa bannaynaya laa ba'sa dhib ma jiro su-aashan odhanaysa ilmaha yarweelkii wax ku cabbay hadduu aabbuhu wax ku cabbo miyay gabadhu ka furmaysaa hadda meel bay ku daba leedahay ogow halkay ka niyoonayaan waxa weeye qofku hadduu qof dumara caanaheeda cabbo hooyay u noqotaa ee xaas uma noqon karto halkaasay ka yaro bayr leeyihin ama ay ka yaro didsan yihiina waxay leeyihiin caanihii hooyada ayaa ilmaha yar afkiisii kusii jira ama dee uu afkii leeyahay marka aabbihiina hadduu halkaa armay islaantii ka furanta waa feejignaan iyo laxajeclo meen odhan karna islaantii oday ku laxajeclaadaysa un weeyo de way wanaagsan tahay wax dhiba ma laha laakiin marka caanuhu ay qofkan wax ka bedelayaan xagga guurka iyo arrimahaas waa inuu caano badan cabayo 5 jeer uu nuugay oo 2 jir uu yahay ilmo yar uu yahay waqtigaasa qowlka raajixi waa sidaa marka waxaynu ku soo ururinaynaa wax dhibaho ay u geysanayso qoyska iyo xaaladiisa ma jiro su-aasha u dambaysa ahayd ninkaygu bukaan buu ahaa biili ma siin jirin markuu dhintay miyaan qaadayaa asaydii iyo hingaftii haa waad qaadaysaa waxay la socotaa meherka kol haddaad u mehersanayd ama ha ku dayaco ama duruufi ha ku timaado ama muddo dheerba kala maqnaado oo kol haddaad u mehersanayd hangaftii iyo asaydii waad qaadaysaa meherkiina waad leedahay dhaxalkiina waad leedahay haddii uu ku hagranayo nafaqo dayna ama biil dayna aad ku lahaydna dhaxalkaa lagaaga jari doonaa laakiin hangaftii wax sahlan ma aha ee waad qaadaysa جزاه خير شيخ الله كباريو وإنه جناندنا كل جدوى وإنه ويشوغان waxaa jirta hal su-aala oo runtii aan sheekha ku celinayo oo ku soo xidhayo ama laba midhba waxay tahay dadka qaar ducayn dalbanayaan insha allah waa loo ducayn doonaa waxa uu leeyahay ninkani malaa'igtu dhadig ma aha labna ma aha maxaan ku tilmaami karnaa buu yidhi waa su-aal runtii kaa soo qoray xaakimka wax xukumaya kitaabka iyo sunna waxba ku xukumaynin qawaanintaa wadcigaa wax ku xukumaya waxaan shareecadu ka qabtaa su-aashaasna runtii waa qoran tahay inta kale waa iska duco waa khatimaynaa insha allah malaa'igta waxaynu ka aaminaynaa intuu ilaahay inooga sheegay subxaana wa tacaala qur-aanka inoo sheegay axaadiidta rasuulka inoo sheegtay masaa'ilka caqiidada wey arkaanta iimaanka waxaa ka mid ah in la rumeeyo malaa'igta marka waxaa laga rumayn karaa intuu waxyigu ka sheegay wixii aanu waxyigu ka sheeginna in loo baxa maaha waa waxay ka mid tahay bidcada iyo qaladaadka iyo gefka caqadigaabay ka mid tahay su-aalaha kolley siday usii kala muhiimsayn ama waxaa muhiima inay kuwa adiga kugu taagan ee markaa ku haystana inaad ka hadasho weeye xaakimkana xilka saaran waxa weeye inuu ku xukumo sharciga ilaahay xaakimka keligiina haddama saaran ogo adigay ku saaran tahay oo xaaskay saaran tahay ninka xaaska ah oo waxay saaran tahay ka sharkada oo ninka sheekul qabiila ah oo mucallimka madarasada joogo sharciga isku xukunkiisa dadku waxay kula cararaan kaliya ka kursiga iyo maamulka fadhiya waxaana laga yaabaa kan sheegayo laftiisu inaanu sharciga ku dhaqmaynin bahad oo shirkadiisa fasaad ku jiro oo nidaamkiisa dhaqaale shareecada khilaafsan yahay dabeetana halkaas harun buu sii eegaya waxay u baahan tahay horta inaad adigu naftaada ku dabiqdo adeegto ummadana waxaad iyo jeer siday u kala waaweyn dadku ama xilalka caamka dadka haya ayaa dheeftiisu ay sii badan tahay markuu sharciga ku dhaqmo waxay ka mid tahay waxyaabahaynu ilaahay ugu cibaadaysanayno alxukmu bima anzala allah wuxuu ilaahay soo dejiyay isku xukuno waa masalooyinka caqiidada ah waxyaabahaynu ilaahay ugu cibaadaysanaynana waa ka mid haddii ay tahay qaranka iyo hadday tahay qoyska iyo hadday tahay qofkaba qof walba waajib bay ku tahay kii waajibkaa dayacana dee ilaahayna wuu kala xisaabtamaya ummadduna way kala xisaabtamaysaa dembigeenna allaha dhaafo kii waalidkeenna allaha dhaafo
dadka cudurka ka cabanaya caafimaad allaha siiyo qof waliba sibuu u cabanaya caafimaad allaha siiyo inta cidhiidhi ku jirta cidhiidhiga allaha ka dulqaado cisigii iyo sharafkii muslimkula allaha siiyo cadaabkiisana allah inaga badbaadiyo jannadiisana allah inagu casuubo muslimku way dhibban yihiin caalamka in badan oo joogtaa dhibka allaha ka dulqaado cadowgoodana nasriga allaha siiyo nicmada kuwii ku mahadnaqa allaha inaga dhigo khalkhalka iyo khilaafka dadka muslimiinta ku jirana ilaahay ka dhex saaro dad walaala oo quluubtooda ay iswaafaqsantoo diintooda ku walaaloobana allaha ka dhigo dad han weyn oon han yarayn ilaahay inaga dhigo subxaanahu watacaala qur-aankana qalbigeenna allaha u furo qur-aanka qalbigeenna allaha u furo cibaadadana kuwii macaansada ee dhadhan ku haya ee ilaahay ugu dhawaado allaha inaga dhigo waxaynu ilaahay ugu cibaadaysanayna allaha inaga aqbalo cibaadooyinkao dhan allaha inaga aqbalo cibaadada allaha inoo sakhiro aqbalkeedana allaha inoo sakhiro ijaabo allaha ina siiyo iimaankana allaha inoo adkeeyo waxaynu haynaba allaha inoo barakeeyo dalka duunyada dadka diinta intaba allaha inoo barakeeyo ilaahay jannada kuwii uu ku soo ururiyey ku walaaloobe isku waraysta allaha inaga dhigo sala allahu calaa nabiyina muxamedin waalihi wasaxbi wasallam subxaana rabbika